الحمد لله إلهي بانكم mahadinaynaa masaajidka inoo idmay inaan fadhiisano masaajidu waa khayrul biqaac dhulkan aan dul joogno meelaha ugu khayr badan ee ilaahay jalla wa ala agtiisa laga jecel yahay waa masaajida أحب البلاد إلى الله المساجد وأبغض البلاد إلى الله الأسواق نبي عليه الصلاة والسلام وحاول نوشيغي دولك مالها إلهي وجعل يهي ومساجديس مالها إلهي ونعب يهينا وأسواق دويان سوق وماشى التجارة أدوية أي كهر قشو masaajiduna waa meesha ay ka hirgasho tijaarada aakhiradu tujaaru dunya aswaaqda ayaa laga helaa tujaaru aakhirana meesha mar walba laga helo waa masaajida weeyaan Sufyaan ath-Thawri rahmatullahi alayhi ayaa oran jiray al-mu'minu fil masjid kas-samaki fil ma' qofka mu'minka masaajidka dhexdiisa marka uu joogo wuxuu la mid yahay sida kalluun biyo ku dhex jiro oo kale kalluunka noloshiisa oo dhan waxa lagu xidhay waa biyaha hadii biyaha uu ka dhaxbaxana isaga dhibaatoon oo dhimanaya muuminkana meesha uu ku noolaada waa masaajid meesha qalbigiisu ku xasila waa masjid meesha uu diintiisa ka barta waa masaajidka meesha muuminku ilaahay kaga xidhmaa waa masaajidka noloshiisa muuminku meesha uu ku toosiya waa masaajidka meesha ilaahay kaga xidhmaana waa masjid muslim baan ahay masaajidkana kuma xidhni waxay ka dhigan tahay ilaahay cilaaqo lama lihi bay ka dhigan tahay ibn Abbas radiyallahu anhuma ayaa la weydiiyo lagu yiri ninka salaada jumcadana aan soo xaadireynin salaada jamacana aan ka soo qayb galeyn waxa oran lahayd markaas uu huwa fi naar haduu sida ku dhinto naar buu ku dhex jiraa buu naar ninka salaada jumcana aan soo xaadireyn shanta waqtina jamaca aan laga helaynin jamaca aan ku xidhnayn jamaca muslimiinta haduu sida ku dhinto naar buu ku jiraa buu yiri marka muuminku meesha uu kaga xidhmaa rabbigi waa masaajidka meesha uu akhlaaqda wanaagsan uu ka kasbada waa masaajidka meesha uu shariicada islaamka iyo diintiisa uu ka bartaa waa masaajidka meesha qofka dadnimadiisu ay ku hagaagtaa waa masaajidka marka noloshiisa dhan baa masjidka ku xidhan qofka muuminka sida ilaahay ugu xidhmaayo masjidku ka baran sidoo labada waalid u raali gelinaya masjidku ka baran sida uu ganacsiga uu hirgelinaya ganacsigiisa masjidku ka baran sida uu jaarkiisa ula dhaqmayo cilmiga masjidku ka qaadan sida uu ganacsanayana cilmigeeda masjidku ka qaadan haduu ummad maamulayana xabka u maamulayo cilmigeeda masjidku ka qaadan muuminku masaajidka markuu dhex joogo baa la yiri waa sida kalluun biyo ku jiro oo kale والمنافق في المسجد كالطير في القفص qofka munaafiqa masjidka dhexdeeda markuu joogana wuxuu la mid yahay shimbir banaanka uu iska duulayo iska xayaadaya laga soo qabtay oo qafas lagu dhex riday meeshiisi ma laana shimbirku daa'iman meesha loogu talagalay waa hawada yatiir fi الهواء qafas marka lagu ridana waa ciriiri buu dareemaya munaafiqo masjidka marka uu soo galana wuxuu la mid yahay sida maaragtaan shimbir qafas lagu dhex riday buu la mid yahay masaajidu marka waa meesha ilaahay arlada ugu jecel yahay malaa'iktu xataa marka imanayso masaajida ka bilaabaan safarkooda masaajidka qofka ku xidhan ee ku taxan wuxuu noqdaa jaliisul malaa'ika qof mar walba malaa'ikta la fadhiyo buu noqonayaa laana majliska neemka aan fadhina waxa uu nabigu noo sheegay malaa'iktu inay la fadhiisanayso inna lillahi sayyara ba nabigu inna lillahi malaa'ikatan sayyara
ilaahay waxa uu leeyahay malaa'ig arlada dusheeda ayay socdaan yaltimisuuna majaalis adh-dhikri majaalista ilaahay lagu xusay ayay raadiyaan malaa'igta kamida markuu arko wuxuu leeyahay halummu ila haajaatikum malaa'igtii kale ayuu ku leeyahay muraadkada arlada u timaadeen aad kala haydeen aniga arko la kulme kaalaya buu leeyahay dana malaa'igtu markaas garbahooga ayay saaraan baa nabigu calayhi salaatu wasalaam ila samada adduunyada ayay buuxinayaan majliska markay ka noqdaan ilaahay jalla wa ala dhinaciisa u noqdaan buu ilaahay ku odhanaya maanta maxaad la kulanteen oo maxaad ku urursanaydeen waxay odhanayaan adoomahaaga kamida ayaan la kulannay adigay ku weyneynayeen adigay ku ammaanayeen adigay ku nazahayeen adigay kugu mahadinayeen markaasuu ilaahay may arkeen aniga kumay arkin hadday arki lahaayeen bal ka warrama baa ilaahay yidhaahdaa markaasuu leeyahay malagii hadday kuwa ku arki lahaayeen ayakoo adiga aanan ku arkin bayba ku ammaanayeen oo kugu mahadinayeen oo ku weyneynayeen hadday adiga ku arki lahaayeen sida hadda ay ku ammaanayeen ee ku xusayeen si ka sii ziyaadsan bay ku hadal hayn lahaayeen markaasuu ilaahay yidhaahdaa maxay weydiisanayaan bal ii sheega markaasuu yidhaahdaa malagii jannaday ku weydiisanayaan oo jannadeeda may arkeen may arkin hadday jannada arki lahaayeen bal ka warrama siday hadda jannada ku weydiisanayaan si ka daran ayay jannada ku weydiisan lahaayeen markaasaa ilaahay yidhaahdaa maxay iga magan galayeen naarta oo naartayda may arkeen maya hadday arki lahaayeen bal ka warrama hadday arki lahaayeen sida hadda ay naarta kaaga magan galayaan si ka sii daran bay kaaga sii magan gali lahaayeen marka u dambaysa ilaahay malaa'igta wuxuu ku yiraahdaa fawshudukum ya malaa'ikati anni qad ghafartu lahum malaa'igteedii marag waxaad iga noqotaan adoomahayga halka fadhiya aniga dartay u fadhiyay inaan dambigoodii dhaafay buu ilaahay yiraahdaa malag baa hadloo yiraahdaa fiihim fulaan adoon hebel la yiraahdaa majliska ku dhex jiray isagu muraadkiisu ma ahayn inuu xuskaaga dhageysto inuu ammaantaada umu fadhiisane laakiin muraad kale meesha ka lahaa markaas ilaahay odhanaya humul qawm la yashqa bihim jalisuhum kuwaas waa qoom kala fadhiistaan ma hooga isagana dambigiisa dhaafa baa ilaahay ku yiraahdaa majalistan ilaahay aan ku ammaanayno ee diinteena macaan isku baraarujinayno ama quraan aan ku akhrisanayno ama xalaqaat ilmi masaajidana aan kaga qayb galayno ama kaliga intood miskiidka aad fadhiisato aad ku dhikrinaysid aad waqtigaaga adduunyada intood ka soo goysid aad masaajidka ilaahay ku camiraysid dambi dhaaf baad ka helaysaa qalbiga ayaa kuugu xasilaya malaa'igta ayaa kuugu ducaynaysa ilaahay baad ugu dhawaanaysaa walbahaarkii adduunyada ayaa kaaga baaba'aya masaajidka huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubi al-mu'minin liyazdadu iimanan ma'a iimanihim sakina qalbigana ku soo degaysa sakinadu waa maxay iimaankii aad lahayd baa iimaan kuugu ziyaadaya aqoontii aad lahayd baa aqooni kuugu biiraysa cilmigii aad lahayd baa cilmi lagugu daraya qurbi min allah hadba intaad ilaahay aad u dhawaan jirtay in ka badan ayaad ilaahay u sii dhawaanaysaa markaad masjidka ku nagaato marka masaajidka hadduu qofku xaqiisa u bato jaliisul malaa'ika ayuu noqonayaa qofku hadduu xagga suuqa u batana jaliisu shaytaan buu noqonayaa shayaatiintu la fadhiisanaya halka masaajidana malaa'igtu ay imanaysa baa la yidhi aswaaqdana shaydaan ayaa calankiisa ka taagto junuudiisa ka kala dira marka qofka suuqa u bata tabiicadaha abaaliista tabiicadaha shaydaanka ayuu yeeshaa shaydaanka dabeecadiisu waa maxay al-isyaan wal-kibr wal-hasad wal-bughd nacam wal-kufr wal-iyadu billah sifaadka xun ee damiimada ee qofka lagu arkana ilaahay uu ka dheeraanayo ayaa qofka ku beeranta hadduu qofku majaalista suuqa u bato lidalika nabigeenu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa uu ka ilaalin jiray suuqa inay fadhiistaan iyaakum waljuluusa fi turuqaat yakoo suuqa fadhiyo maalin arkay wuxuu ku yidhi jidadka aad fadhiisanaysaan baan iniga digayaa buu rasuulku yidhi ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها بيدادين مال كلام كوف شيكيسنو ما هيسن النبي الله sheekadoodu maxay ahayd bay kula tahay diinu bay ka sheekaysanayeen jaahiliyadii noloshay ku jireen iyo islaamka macaankayga isku barbar dhigayeen diinta nabi maxamed ku soo degtay bay mar walba majaalista suuqooga isku barayeen markaa buu nabigu yidhi haddii dariiqa fadhigiisa aad ka maarmi weydaan oo meel badiilood fadhiisataan oo meesha meel ka duwan aanad haysan waa hagaaga dariiqa xaqiisa siiya buu rasuulku yidhi sallallahu alayhi wasallam
وحق طريق نقول يا هو محي وحو النبي يقول غض البصر عنده إن الله أبو النبي يقول كف الأذى ذاتك طريقة مرة أنا دبتينا كاللابتو كهيست أبو النبي يقول رد السلام ذاتك طريقة مرة يمرك إن سلامنا سلامته وعلي يقول أمر بالمعروف ذاتك طريقة مرة يبو النبي يقول وناقي خير كفر خيرك وشيء نهي عن المنكر ذاتك طريقة مرة يا منكر شرعك وح إنكرسن وح شرعك إسلامك إنكري ذاتك أي نلوشو ذا كم موقته منكر ككرب أبو رسولك يقول شنتا قصلا دوت قفك هدو ليه هاي طريقة أو فريسن كرا شنتا صفة هدو قفك أوسن لا إيمان كرين طريقة وحو كقاضية دنبي ومو كقاضية يقول إنه قفك ينده سائل عليه وقعنتي سكائل عليه مسلمين تدبتو ده سلام هدي الله سلامنا سلامته إنه عليه ذاتك وناقة إنه فرو حماهن أو كريب الله نسيه صفات كاس دينة الإسلام هو دين بلارن طريقة حقي سيبك هو قيحدك هو شكته من حق إلهي كقولها أنا ويكون عديسي إلى طريقة ضدك مسلمين تكدح أي مريان حقوق دولية هنا دين الإسلام هو يكون شكته marka goolay dadkeenan waxaan u badanahay dadka suuqa ka bayع mushtariinay Soomaaliya bayع mushtarkiin Allah inii barakeeyo amiin hada lana tijaarada wanaagsan ee xalaasha waa cibaado bay culimadu yiraahdaan waa cibaado oo nabiga sallallahu alayhi wasallam wakiilaha dirhamka aad ilaahay diinkiisa aad ku bixisay iyo dirhamka adoon aad ku xoreysay iyo dirhamka miskiin aad siisay iyo dirhamka reerkaaga masaariif aad uga dhigtay iyo biilkoodii aad uga dhigtay ilaahay agtiisa waxa ajar badan oo khayr badan buu nabigu ka aad reerkaaga ku bixinaysay waa markuu xalaal yahay weeyaan xaraan haduu noqdo may bishardi waa inuu hada xalaal kasbiga xalaashaana bay culimadu yiraahdaan waa cibaado صدح خصلات هادو كسبغاسي uu leeyahay cibaado noqon haduu san lahayn cibaado noqon maayo marka uu horeysa kasbigaasi waa inuu hada halal piir waa inuu hada marka saddexaadna kasbiga dhexdiisa wax macsiya waa inaan lagu sameeynin oo macsiya laga ilaaliyo oo ilaahay taacadiisu ay kugu dhaafin salaadu yeena kugu dhaafin kasbiga dhexdeeda wax qaflad oo diin la'aan ayaan lagu arkin ومقاحيها دركيسا subaxdina quraan bay ku daaraan iyo ku furaan waaga marka dadku indhaha kala qaadaan hees qaaciya bay ku tuuraan idan maalin ku weecano nidhawniyo ajaladan quraanka ama wacdigan culimada subaxdii aad daaraysid maad ku daysida wuxuu dadka ii soo galay buuri hadaan taa ku daayo la ilaaha illa allah oo hadaa subaxdii maxaad u daartaa wuxuu waa baraka buuri waa barako barakan ka raadinaya buuri nin waxaan xasuustaa bari magazaan sidoo u dhan yahay khamri lagu wada iibinayo oo nimanka iibinayana arab ay yihiin arab muslimiina ayaan yaa leeyay nimankaas waa arab ee bal inkaas dadka ziyaartay u tago ziyaarta markaasaan ziyaaranayo waxa meesha dhex joogana waa wada khamri shakalka yagi markuu arkay buu ninkii la yaabo wuxuu yiri ma qolo mutawiciin oo miskid ka timidaatiin ha lacag buu soo saaray waa kana lacagtan iga qaata markaas aan ku anagu lacagta ma qaadano he dadka awqaadoodan waqti ka qaadanaa ee yar waqti nasiyan kula hadallo intaan la hadlaayay baan u fiirsado makhalkan oo lacagta ku urursanayo waxa ku dul qoran aayatul kursiga ba ku dul qoran lacagtu ku ridayna halku ka keenay waa lacagta khamriga markaan la hadlay yar xadiisay baan ku yiri cilaaqada ka dhaxaysa aayatul kursi iyo meeshaadan maxay tahay baan ku yiri markaas uu wadankan tuugta ayaa ku badan niman baa ku soo galay xabad rasaas ee madaxa kaaga dhifanayaan waxa meesha yalla way qaadanayaan marka aayatul kursina wuxuu hooyadii baa ii sheegto igu tiri aayadaas waa xifaado weeyaan
وحليه وحي لغو أخرية يماشى لغو أخرية إلهي وإلى لياية ساسا كو أغادي بودي آية داني مركا وإلى النساء العقتي دي بودي marka kasbigu waa inuu noqdo xalaal marka horeysa marka labaadna bay culimadu leeyihiin kasbiga dhaxdiisa waa inaan wax macsiya lagu dhex sameeyo marka saddexaadna yaqiintaadu inay kasbigan ahaan yaqiintaadu waa inay ahaato waxan waa asbaab dukaankani waa asbaab beertani waa sabab tijaaradani waa sabab tacliintu waa sabab aqalkani waa sabab hotelkani waa sabab laakiin arsaaqada ilaahay baa haya أسباب ويان أرزاق الله صودح مرينيا لكن رزاق وإلهي مثال يربان نيسو قادن مساجد نواد ركتين وبانبادن قصبادن مركي لفروبيا كصودع نرر بادية آيات مقالة دي صوق قلايو دادك الرميقنا دادك وادادك مركي وليب الروابكو أيريهين علاش أمدحاها بيها لي حولها كو أروريا و10 كيلومتر دوري 10 كيلومتر بريرك لا سي ود iyo geela iyo xoolaha waa la aroorinaya intaan la xoolaha intaan la kaxayna waxa la sii diraa ceelalyo marka ninkii magaaladu yimid oo qasabadii buu arkay kolka sidan loo wareejiyo biyo ay ka soo daadanayaan markaas uu waa wareey warana ku magaalada miigan ka imanay haraad baa loogu dhintay buuli dadkii reer magaalkuna birtan u biyo ka helayaan buuli Allahu akbar markaasuu wareystuu yiri birtan halkee lagu gadaa ay sheegay waxa dukaankana lagu gadaa imisa la siiyaa $5 walba birta qasabada masaajidka ku taale marka la furo biyaha soo deynaysan ku weydiiyay buudi waa tan buu yiri waa $5 waa badwi iska qaato wadankiisii buu la tagay dadkii oo arooraya buu ku yiri war joogsada waad war laadihiin magaaladu way ilbaxnimo waxa la gaaray birtaas biyo laga keenay birtii baan soo iibiyo tolkayo biyo ma ka soo dhacayaan ka soo dhicmayaan yani waa midaal wuxuu ku soo noqday ninkii wuxuu rood dhacday buu saad ugu dhacday aanu ta masaajidka aan ku arkay biyaha soo deynaysan ka iro tan adiga iibsay bila biyaha markaas lagu yiri war qasabadan aad arkaysid barakad baa ka horeysa barakada qasabad kale biyaha ku shubaysa qasabado iyo beeba baa dhulka dhexdeeda marsan biyaha waxa laga keenay ceelal riig lagu qodo 200 mitir baa biyaha loogu tagay hadar wax sahlan ma haba lagu dhibiyay lagu keenay مثالkaas dadku maanta la mid yihiin ninka qasabada biyuhu ka soo baxayaan biyuhu halka inay ku jiraan buu mooday uu ku dhagay bal meesha biyuhu way ka soo dhax baxayaan dukaankaaga aqalkaada tijaaradaada beertaada ziraacadaada xoolahaaga xafiiskaaga waa asbaab ilaahay baa soo dhax marinaya arsaaqada laakiin razaaq waa kuma razaaq waa ilaahay رزاق وإلهي لذلك قفك مؤمنك أسبابتا والله إيمانا إنه يقين صدى الله دوني مايو أسبابتا وحا اللو باهن يا إنها أسبابهان والتي معدد لكن أرزاق قد إلهي بإنه بلان قاضي وأفر بل يلا ما تنهى بين علمه علوشه يمركو كجري أفرتي الرمودة ملق قريبا كمتحي بكتب نعم بكتب رزقه وأجله أو شقي أو سعيد وكي حديث صحيح النبي شيغي أفر با علمها مركو بقولي لباتنها بين أوركو وكجرو أفرتن كهرب النبي يقول والنطفض وبيير أفرتن كدنبنا وحا النبي يقول وحنجري روديغا أفرتن كصدحاده دنبنا ووصلدي روهيلبا بقولي لباتن كها بين علوشو علمه مركو كجرو أيا ملك الروح الله سو ديباي وافوفا دنا ملكاسي أفر شيء بقرا يا ابو النبي يقول وحا يداد إلههم ما أدونك علمها علوشا قال ملبا مددق habeenkaas la qori midka uu noqonayo maqani ba mise waa faqiir arsaaqadiisa habeenkaas la qori ma ahlan naar ba mise waa ahlul jannah habeenkaas la qori buu nabigu yiri malaba mise waa dhidig ajashiisi ba la qoray arsaaqadiisi ba la qoray shaqi iyo saciid ahlul jannah ahlul naar midku yahay habeenkaas la qori halka qabrigiisu noqonayna habeenka bal calaamadeyn taariikhdu dhimanayo marka waxaan adduunka dul yaalo waa asbaab daawadaad cunaysid waa sabab lama inkirayo dukaankaad ka shaqaynaysid furata waa sabab lama inkirayo
beer haddaad falatay waa sabab laakiin waa inaad ogaataa almusabbib waa ilaahay jalla wacala marka yaqiin baa loo baahan yahay dadku inay ku noolaadaan yaqiin naciish calaa yaqiinin bay culimmadu leeyihiin marka kasbiga xalaasha hadduunan ku dhicin dariiqadii nabigeena calayhi salaatu wasalaam dambi baa ka dhalanaya isagana waxaa ka mid uu nebigu sheegay xadiis saxiixa waa kii nebigu lahaa saddex ilaahay qiyaamaha la hadli maayo dambina ka qaadi maayo il naxariislana ku dayi maayo cadaab kulul oo daranna way leeyihiin buu nebigu yidhi saxaabadu markay sidaa u maqleen hadalkaas saddex jeer buu nebigu ku celiyay saddex ilaahay qiyaamaha dembigooga dhaafi maayo il naxariis la ku eegi maayo walaa yanduru ilayhim eegi maayo xaggooda weeyaan laana cidda ilaahay daymooday baa la yidhi ilaahay waa u naxariistay ka dhigan tahay lana hadli maayo ilaahay jalla wacala cadaab kululoo daranna way leeyihiin saddex jeer markuu intaa nebigu ku celiyey ayuu yidhi abaadar baa yidhi khaabuu wa khasiruu man hum yaa rasuula allah kuwaasi way khasaareen wayna hoogeen ayay yihiin nebi allow noo sheeg markaa buu nebigu sal alla alay wasalam wuxuu yidhi almusbilu waa ninka maradiisa quraanta dhaafiya buu nebigu yidhi kibir iyo khuyalaa buu u dhaafiya xarago iyo isla weyni ama surwaal ha qad noqoto ama qamiis ha noqoto ama macawis ha noqoto ama jubbad ha noqoto qofka maradiisa quraanta dhaafiya waa ahla naar walciyaadu billaah walmannaan buu nebigu yidhi ka dadka u gallad sheegte ee dadka ku yidhahda anigaa wax kaa dhigay anigaa halkaa ku gaadhsiiyey anigaa maaragtaanay bani aadan kaa dhigay anu haddaan jirin adigu ma jirteen dadkana anaa kugu daray abaalkayga maad ilowday mannaan gallad sheegte mu'minku ma gallad sheegto mu'minka waxaa lagu yaqaanaa laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuura marka uu wax la baxayo markuu ummad wax baraayo markuu khayr ummad u samaynayo markuu ixsaan samaynayo waxa uu leeyahay anu ilaahay maayna adiga waxba kaama barababa ilaahay dartii baan wax kugu qaban laana ilaahay baan wax ka sugayaa iyo walmunfiqu silcatahu bilxalafi alkaadibi baa nebigu yidhi ninka badeecadiisa ku iibiya dhaar beena badeecaduu iibinayay buu ku iibinayaa dhaar beena maxaa dhaarta kugu kalifay si qofkan jeebkiisa lacagta ku jirta uu ula baxa buu leeyahay anigu $5 baan ku iibsaday $1 baan dul dhigtay intuu weliba u dhaarto maxaa been kugu kalifay aba waxaagiya tijaaradu waa xalaal maxaad been ugu tijaaradaadii aad been ugu badili dhaar beena maxaad ugu iibin waa inaad runta u sheegtaa qofka intaa baan siinayaa intaa wixii ka hooseeyana kaama ma dhimi karo marka taajirka waa inuu ahaada taajiru saduuq alamiin yuxsharu yowma alqiyaamati maca annabiyiina baa nebigu yidhi xadiis kale ninka taajirka ee tijaaradiisa labadaa sifa ku iibinaya labadee alsidqi waalamaana waa run wixiisu waa run been ma sheegayo wuxuu iibinaya run buu ku iibinayaa waxuu qaadanaya run buu ku qaadanayaa ammaanana uu leeyaho dadka agtiisa ay ku isla ganacsanayaan hadday ammaano u dhiibtaan ammaanadii way ugu imanayaan labadaa sifa ninka taajirku wuxuu ku noqonayaa ma taqaanaa maalinka qiyaamaha wuxuu la soo baxayaa sidiiqiintuu la soo baxayaa sidiiqiin nebiyaduu la soo bixi oo sidiiqiintuu la soo bixi oo saxaabada rasuulka radia allaahu canhum raggii jannada loogu bishaareeyey ragga ugu qiimo badnaayo ugu waaweynaa tujaar bay haayeen cusmaan binu cafaan taajir buu ahaa abi bakr sidiiq taajir buu ahaa cabdiraxmaan bin cawf taajir buu ahaa sacd ibn abi waqaas taajir buu ahaa zubayr binu cawaam taajir buu ahaa tujaar bay haayeen tobanka jannada loo bishaareeyeyba waxay culimmadu yidhaahdeen nin ahla sufaa kuma jirina tobankuba wujahaa u naas bay haayeen ahla sufuhana waad garanaysaanoo waa raggii nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka nebiga ee xagga dambe ka deganaayeenoo abaa hurayre ayaa ka mid ahaa raggaas waa la yaqaanaa raggaas laakiin tobanka jannada loo bishaareeyey ragga wada sharaf labay haayeen oo dadka ragga ugu cadcadee waddanka iyo ummadda laga dhex yaqaana bay ahaayeen
أبي بكر الصديق وكمد رضي الله عنه maalintuu islaamay 6 dukaan buu magaalada Makka u ku lahaa maalintuu nabiga la hijroonayayna awrku nabigu fuulayay maalinta Abu Bakar isaga keenay walaakin nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam wuxuu ku yiri bithamaniha ya Abu Bakar anu awrkaadii keentay lacagtiisa kharashkiisa aniga la baxay buu rasuulku ku yiri limaada bil mali wal nafs nabigu maal iyo naf buu ku socdaa maalkiisu ku fidinaya diinta waqtigiisu diinta Ilaahay ku fidinaya dadna nabi Muhammad waa ka Abu Bakar safarka la rafiiqay ila al-ghar safar al-hijra wa ma'ruf taariikhdiisu marna nabigu ka horeeya marna nabigu ka dambeeya marka Abu nabigu ku yiri Abu Bakar mar waad iga horeynaysaa mar waad iga dambeynaysaa maxay ku dhacday xagga hore markaan kaaga baqana waa ku hormaraayo waxaan idhaahdaa cadowga nabiga intuu wax yeelin adiga waxa lagu yeelo xagga dambe markaan kaaga cabsadana waan ka dambeeyaa buu ka yiri maalintii nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam godka la galiyayna Abu Bakr as-Siddiq taajir buu ahaa isagoo khalifa oo taladii ummadda oo dhan loo dhiibo gacanta laga saarayna wuxuu ahaa ninkii dharkiisa intuu qaada bagaashka tagay bacadlaha tagay dharkiisa ku iibinayay oo Umar ibn Khattab gacanta intuu soo qabtay uu ku yiri xageed u socotaa deewaan shaqo tagay reerkii ubadkan u shaqo tagay buu ka yiri ganacsi dambe haleeli masjid buu ka yiri taladii ummadda lagu dhibay adiga oo reerkayga masaariftoodiina annaka bixinayno u shuureen adu halka fadhi baa lagu yiri taladii ummadda loo dhibay maskaxdiisa kuma soo dhicin mas'uuliyadda lagu dhibay baad reerkaaga iyo ubadkaaga ku nooleyn doontaa maskaxdiisa kuma soo dhicin waxa maskaxdiisa ku jirta reerkaagana adaa ka mas'uula tanaad ummadda u qabatayna waa mas'uuliyad ummadda u khadmeynaysa halkeen kala joognaa waa kaas Usman ibn Affan kadalika qani buha Usman qani ghazwatu Tabuk markuu nabigu baxayay wuxuu ahaa ninkii 700 oo awr iyo 500 oo faras nabiga hortiisa keenay buha ay inta ciidanka igu dar 700 oo awr iyo 500 oo faras inta bixin kana buu ku jira wadankeena asxaabu rasuul marka laga warramay waxaan u haysanaa dad fuqara iyo dhulka yaalayna ahaayeen 10,000 oo nin sahaydoodii buu maalinta nabiga u keenay 10,000 ana ka qaaday igu daa gaadiidkii raacayeen uu keenay baadkay cunayeen sahay ka dhiganayeen uu keenay marka abu nabigu gacmaha cirka u taagu yiri ya rab Usman ibn Affan raalli baan ka hay adiguna raalli ka noqo buu yiri نعم المال الصالح للرجل الصالح نغمانتا خولهنا بانانكay noo yaalaan aqaladay noo yaalaan ciiday noogu jiraan oo qalaan ku dhisana iyagoo xoolahooga iyo dhaqaalahooga diinta Ilaahay bay ku bixinayeen 700 oo faras oo awr iyo 500 oo faras iyo zaadkay 10,000 oo nin ay cunayeen sahay ka dhiganayeen ila Tabuuka ay tagayaan ka soo noqonayaan aniga hal igu duceeyo buu yiri fuqara ma hay nigaan gaas hadana habeenkii laba rakacadood oo kaliya quraanka dhama ku dhameynay hadana ninkaas maqaam Ibrahim buu habeen labada lugood la galay Usman بعد صلاة العشاء مقام كان النبي إبراهيم وهل كراتك كويا لو ويان إمك وكوا كوسمي قبض دير الذهب كان دلاشة إيش هذا اللي قد عوضه الجبري قال بنان كيسكا هيدو لبض اللقط بالدول دي جرو مركا مقام إبراهيم هل كابو عثمان هبين كي نن صحابة كمدو كويدي يجا يربح أنا كوي عبادته مركاسو بوجا بحي مركو أركا أميركو دول جوجا بوجا دقاقة مركاسو لبض يسولو وذل كاجلية لبض ركعوا كتكذي ركعتي كوبان قرآن كوكود ميجي ركعتي لبعض نقول والله كتو كذي آذان كيف فجر كنا والله أدمي الدوية هنا التجار بيهاين وحولها أنت عليك بيدين تكون بحنايين آخر هذا مركز نقطة عبادة مركز نقطة قرآن كذا ركعات بكو ختمي لما كي
buqaada ahaa markii Cusmaan ay rabeen inay dilaan fadaa'ilka uu sheegtay bay kamid ahayd arrinkaas warmaanaad dilaysaan buu ku yiri nimankii buqaada ahaa Masar iyo Basra iyo iska soo urursaday ee doonaya Cusmaan inay qudha kaga jaraan runtii wayna dileen markii dambe wuxuu warmaanaad dilaysaan miyaanadi ogeyn buu laba gabdhood oo nabi uu dhalay in aniga la ii dhisay oo tani markay iga dhimatay tii labaad uu nabigu ii dhisay tii labaad markay iga dhimatay uu nabigu yiri ina saddexaad oo ina Muhammad haday noolaan lahayd Cusmaanow waan ku guurin lahaa buu nabigu alayhi salaatu wasalaam awwaliin iyo aakhiriin waa ninka kaliya laba gabdhood oo nabi uu dhalay ay xaasul noqdeen baa la yiri taariikhda nin kale oo galay ma jiro caalamka ugu kaligii buu taariikhda ku jira Cusmaan ninkaas aan ahay aniga maxay iga dilaysaan war miyaan adi garanayn buu waxaan ahay mujahhiz jaysh al-usra ciidankii cuslaa ee nabi maxamed uu hor socday 30 kun ahaa ninkii sahaydooda diyaariyay ciidanka xambaaray ee gaadiidkay raacayeen iyo sahayday ku baxayeen keenay baan imaad garanayn buu ku yiri war aniga miyaan adi garanayn buu ninkii bi'r mauna maalintii ansaar muhaajiriintu nabiga u yimaadeen ay yiraahdeen magaalada Madiina biyaheega waa la iibiyaa anaguna lacagan biyaha ku gadana ma haysano waxaan ahay ninkii nabi maxamed ku yiri ceelka bi'r ruuma aniga keenaye nabi allow ceel jannada ku yaal hal igu ballan qaado ee ceelka ninkii lahaa intuu u tagay 30 kun diinaar intuu siiyay furaha ka soo qaaday nabiga u keenay ku yiri yaa rasuulullah ceelkaasi waa waqaf muslimiinta abba hadhaasada biyiisa waa kuwaas oo nabi maxamed uu yiri Cusmaan ilaahay wuxuu ku diyaariyay ceel il jannada ku taala ilaahay ku ballan qaado nabigu ku yiri ya Cusmaan baa nabigu ku yiri maalinka amal dambe oo wanaagsan oo saalix ah hadaanad qaban oo inta aad ku joojisid adigu inta ba janno ku gashay buu khalaas ninkaas aan ahay buu war waxaan ahay ninkii nabi maxamed uu yiri miyaanan ka xishoonayn ninka ay malaa'iktu ka xishooto wayana Cusmaan nabiga alayhi salaatu wasalaam oo jilibkiisaasi uu muuqdo ayaa Abu Bakar u soo galay oo iska fadhiyay nabigu sidiisii kama dhaqaaqin fadhigii hadana Umar baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay hadana Ali baa u soo galay sidiisii buu u fadhiyay Cusmaan ibn Affan markuu soo galay nabigu maradii buu hagaajistay markaas nabiga lagu yiri Abu Bakar iyo Umar labaduba sodog bay adiga ku yihiin Alina inantaadu qaba saddexdaaba Cusmaan ka soo horeyso maradii mad saaran jilibkee maxaad Cusmaan uga xishootaa lagu yiri miyaanan ka xishoonayn buu nabigu yiri ninka malaa'ikta ilaahay ba ka xishootay waxaan ogahay buu nabigu yiri hadaan sidii u fadhin lahaa xisho daraadad Cusmaan ma soo galeen buu halka uu joogi lahaa buu yiri war ninka dilaysan waa ninkaas yiri ninkaas aan ahay maxaad iga dilaysan aniga علي بقى يمدي وإنما دي جرب سعودان وهو بقى سوق عتان يا أبا هريرة يا أمير المؤمنين نما كان بقادة كوكو سود لو عشان بقولون مقالة المدينة أفرتن كن أنن بجوكتة هنلاينو هنقابنا قدها هنكجرنا نوقف الصحاب كويري وحولي ماي ديج إسلام مقالة المدينة قد هذا مايه حد أنا جاي دلان هاي دلان حد أنا جاي دلان بقول أنا النبي عيسى يقولي قميص كإلهي كوجلي يبي دم عدونا إنه كاسران هذا عثمان وقميص كأدس كسرت بو نبي يقولي أنا جاي أركي مسجد أقول قيامة هلا كل من مسجد بيرتي أبو بكر والنبي قال الباب كي أقرعي يا أبا موسى الأشعري وها بواب كالنبي قوها أقرعي وكما وأبو بكر وكوسو إجازة قاضي الجوب نبي قوش يقول عثمان أبو بكر بقى الباب كتاجن صوق الكذب يقول الباب كأوفصح جننا أو بشارة هذا عمر بقى قرعي عمرنا أوفصح إنه صوق له جننا أو بشارة هذا عثمان بقى الباب كتاجن عثمان الصوق الكذب أو إذن جننا أو بشارة بلايا أسيب دونتنا أو شيء برسولك يقولي مركب النبي يقول بشارة دي مركب الله شيء بلايا الله صعوتا وحول الله المستعان مركب تيبو عثمان حسوسي علي وحو كيري بلايا دا أنا جايني قبسني دونت النبي جاي شيء أنا قلنا وانسك الصبر ياي أنا كلي جاي هلا يدلو هندينتو أنا جو هدان دينتو نينكلا أو مسلمين تكمدو إنك إنك مدا باتنا دا أودي بني سانة أنا قدرت يها أود قال لمين إسكت دا يبيو الإسلام نمدو باقي هالنقطة
la oran maayo niman buqaada bay dileen oo Madiina ku dileen la oran maayo waxa lagu sheekeynay haddaan isku kii fasaxa imika muslimiintii daarul khilaafa buu dagaal ka dhaco dawladda islaamku way baaba'ada la oran buu yiri marka anu han iska dhinto hay dilaan aniga laakiin dawladdeena islaamku hay noo jirto midnimadeenu ha jirto bal fahmiga saxaabadu ay qabeen eega dhiigoogay ummadda ku badbaadinayeen ummadnimadu inay jirto Usmaan dhiigiisii buu huray waayo muxuu dhiiga ugu huri waayay min maalintuu islaamay ilaa la dili doono dhaqaalihiisii oo dhan baa diinta islaamka ku baxayay islaamnimada markay wax ka galaan baad u lex jecloon moogta asxaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam min kooga faqiirka ilaa kooga qaniga malqabeenka diinta islaamka iyagu waxbay gashadeen diintu waxbay gashadeen faqataluhu dadna Usmaan sidaasay ku dileen ragay waliba uu soomana maalintii la dilaayay isagoo sooman bay dileen markaas ragii u yimid ugu dambeysay u yimid wuxuu ku yiri xaq haddaan nagu leeyahay anigu amiirkiini aan ahay aqaladiina fariisa seeftan iska dhiga buu ani hay difaacina waayo nabiyullaahi muhammad alayhi salatu wassalaam ya abi bakr ya umar ban kuma naamay waxay ugu yiraahdeen Uthman oo maanta anaka nala afuri doontaa marka anigu waan socdaa buu yiri ma joogay adduunkan meel fiican waan marayaa marka aniga dartay ha u dagaalamina buu yiri aniga magacayga dhiig islaam ku daadanina halkiina jooga buu yiri aqaladiina fadhiista markaad maqashaan Uthman waa la dilayna inagu shuuraysto amiir muuminiinta u doorta buu yiri taladu ninka naga guuya kuwa noqon mayse dhiigiisii buu ku badbaadinayaa dadnimada iyo dawladnimada islaamku inay jirto inagana zamankeena wuxuu leeyahay diinta maxay ka galay buu koodhan diinta maxay ka galay diinta warun waxba kaama galin aqli kaama galin oo dhaqaale kaama galin oo waqti kaama galin oo dhiig kaama galin oo dheecaan kaama galin laakiin qabiilka hadii la caayo waa damqan darkaad ka dhalatay hadii la caayo oo la taabto dhiig karbaad yeelo dhiig wadnaha ku kici way reetolka maxaad ugu damqanaysaa qaaraankaad ku bixisaa iyaka islaamnimada se waxba kaama galin iyaka islaamnimada waxba ka galay min maalinkuu islaamay Usmaan ilaa maalinkii la dili doono dhaqaalihiisa oo dhan diintu ku bixinayay meesha xoogiisii dhaqaalihiisii aqligiisii uu ku baxay inuu naftiisa ku badbaadiyana diyaar buu yahay maana hay dilaan laakiin midnimadeenu ha jirto ani hay dilaan laakiin magaaladii Madiina dagaal ka dhacayaan la maqlin aniga hay la dilo han ka taga adduunka laakiin islaamku way haystaan ka tago laan agtooda diinta qiimo lahayd yaka عبد الرحمن بن عوف كذلك غني بها رضي الله عنه مالقبين وأنك عثمان بن عفان كي يبيبوها يسقنا عثمان بو كي يبي عثمان بن عفان وأمير أي عثمان أورنجري وحان الله يا باب التجارة عبد الرحمن بن عوف سيد الله يابتال لغيري وعلى المسلمين المدينة كنا لو دم بعد مودين لليهين مركي مغلان عبد الرحمن تجارة دي سوي كبعضو معاشي ولا فرحان حدي مغلان عبد الرحمن بن عوف تجارة دي سي خسارة كوي مدي وهو صدعبا كوي مدي حدي مغلان وكنا حام بيودي وحين اوغنا حيان بني شيغ بيودي دغيسا عثمان بالي مقالة مدينة دتك دغن عبد الرحمن صدح بو قيب صدح قيبود قيب او ديميا العقد وعود على معاش كان الله رئيس مال كان اسكا سو علي qaybta labaadna wuxuu yiri aqaladoodu yaqaanaayo masaarif buu siya biil ku siya biil oo tirsan yihiin inta guri ee saboolka qaybta saddexaadna wuxuu yiri deynka lagu yeesho ee iska dhiibi kari waayaan ayay isaga ula soo noqdaan yiraahdaan Abdurrahman baan nool ibn Auf baan noo jooga annaka Abdurrahman baan Auf te u yimaadaan bidaya deynku gule hebel waa kan iska siyaana ku noolay
ninka xoolihiisii magaalada madiina muslimiinta ku nool oo dhan sidaa ula simay mar aliya markay maqlaan tijaaradii cabdiraxmaan baa kobocday way la farxaan limaada laanna way la leeyihiin hadday maqlaan cabdiraxmaan tijaaradiisii hoos u dhac iyo ganacsigiisii baa hoos u dhacayna way ka naxaan limaada liannahu way la leeyihiin iminka tujaarteenu macaynkaaba masaasa waa musleene ya mid miskiin oo dhuuban ayaa arkay nin taajir oo iska yar calool buuran markaasuu yidhi waxa caloosha ka buuxa annaka munasiya buu yidhi annagii baa ka gaajoonayna buu yidhi waxay asxaabtu ay hayaan waxay u fahmeen inay muslimiinta u hayaan innakuna waxaan u fahmnay waxaan haysta buu ku leeyahay nin walba anaa iska leh aragtada intay isku jirtaa markaa waxaan haysto ana iska leh waxaad adu haysatidna anay igu fiican yihiin iyaku waxay lahaayeen waxaad haysato adaa iska leh allah kuu barakeeyo waxaan anigu aan hayana walaal adaan kuu hayaa inaan xaqaaga ku ilaaliyo naftayda uma nooli bay lahaayeen iyaku ummaddaan u noolahay haddaan dhimanayo ummaddaan u dhimanayaa innagana maanta waxaan maraynaa inaan idhaahno hee waar anu nafteyda maan cid kale ma aqaano dadka kale maxaa iga galay buu ku odhan ku saliya rasuul hadduu yidhaahdo qofku waxaan haysta anaa iska leh halkaa waxaa ka dhalata ma taqaanaa xasad baa marka dambe qofka ku dhasha xasad maxuu ku imanayaa markuu yidhahdo waxaan haysta anaa iska leh wixii fiican oo dhan anay igu fiican yihin marka dambe iman doonta marka hore wuxuu odhanaya waxaan haysto anaa iska leh cidna ilama leh marka dambe waxaa ku dhalan doonta inuu yidhaahdo kan wuxuu haysta hee siduu u haysta anay waxaan igu fiican yihiin xasad xasadkuna waa sifadii qaabiil uu walaalkii haabiil uu ku dilay واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين ولا ليها يعني آدم بعد لبدو ذبا لكن برقا ما دام بن آدم ترمايي حواء مركع علوش يدا الماء قلبا لبا دليس لبا متاني دليس ويليا قبر wiiliya gabadhan isla dhashay labada ku xigto iyakuna wiiliya gabadha ayay isweydaan la iskugu guurinayay baa la yidhi bani aadamka tarmaya markaas marka qaabiil waxaa la dhalatay gabadh qurux badnayd haabiilna waxaa la dhalatay gabadh fool xumayd baa la yidhi markay afartoodii barbaareen ay weynaadeen ee kobceen ayuu aadam ku yidhi waa hagaaga haabiilow mataanta qaabiil guurso waa sida curfiga ugu ahaa shareecadoodu marka ay ahayd qaabiilow adiguna mataanta haabiil guurso marka qaabiil baa yidhi may aniga ta ila dhalataa qurux badanoo ta isaga la dhalata way fool xun tahay marka taydan guursan buu yidhi yani wixii fiicanba anay igu fiican yihiin weeyaan marka aadam baa ku yidhi may sharcigeenna inanka la nooma ogolo may halka sheekada oo maraysa mufasiriinta qaarkood ay qoreen آدم عليه السلام وحو تغي مكو تغي دنا قابيل iyo haabiil baa isku hadhay labadoodii baa markaa waxa isku bandhigeen ay yiraahdeen hadaba waa yahay sadaqad han la baxno keena sadaqada laga aqbalo ha guursada gabadha quruxda badan leh ilaa qaabiil tii haabiil la dhalatay fool xumeyd uu iska diiday inuu guursado wuxuu leeyahay anu tan mataanta ila dhalatay quruxda badan leh haabiil u dhismaayo ana guursan buu leeyahay labadoodii markaa waxa loo bandhigo la yiri sadaqad la baxa ninna wuxuu ahaa beeruhu falan jiray oo qaabiil wuxuu ahaa nin falaaxo bidirka iyo zaraca dhulka ayuu beeran jiray haabiilna wuxuu ahaa baa la yiri xoolo dhaqato kana beertiisii wixii ka soo gacay buu halka ku uriyay kana xoolihiisii neefkii ugu qurux badnaa ee shishlaa ayuu xagga soo dhigay baa la yiri marka sadaqadaas in la aqbalana waxa lagu garanayay samada waxa ka imanaysa naartaasi markaa sadaqada la aqbalay bay ku dagayso way gubaysa
way baabi'inaysa marka haabiil sadaqadii uu la baxay ayay ku soo degtay baabiisay bal waa neefkii tii qaabiil meesha uu ku ururiyay shaciirkii iyo wixii dal cunay zarca aha naartii waa ku soo dhici weyday marka qaabiil ba si xanaaqo yiri haabiil oo si adil laga aqbala oo in laga aqbali waaya marka haabiil ba ku yiri walaalkii da ilaahay dadka Allah ka cabsiga loo sadaqada ka aqbala buu yiri deewaan ku dili da aday ku taallaa buu laakiin anigu hadad adigu gacanta ii soo fidisid anu ka gacantayda ku qaaday ma yihibu ka yiri deewaa ka dilay marka quraanka ilaahay ku sheegay faqatalahu fa asbaha min an-nadimin وحلي وحبني آذن حق در لو قد له أردن إلى قيامها إن آذن كهور ديك دادي ديك وجوهر حق در إنك قد دادي قابل بها دم بيوسبنا كله يا واحد بني آذن حق در ديك لو قد له أردن دم بيجانا محوك هذا شيء أو محوك هذا شيء حسد حسد كنا ما أقول شريعة الإسلام حسد هو معي هدي الله معنا يا واحد كده قلت هاي إله النعمة هبل هبل أتسيسي وما قلمه ما حد سيسي ما إلهي بعد مركا كأركت في عنته دنبق حسد كالقولية حسد كمركا دم وحو جايي إنه قابيل ولالكي وكل قروب لذلك ذاتك بايع مشتركة صفات حسد كوين كفو قدام كيشالي سوق الصوق قليب الله جاي بينه كل دافع دقة هاي سورة صدوق دافع نقة إلهي بقى أقرأ ده سجى يا أقرأ إلهي لأن الرزق هو منقسم والله غيبي الدنيا ده اللي قمت ترتمي الدين ده اللي قمت ترتمى خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا ومن لم تكون فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا لما خصلتود قفك نولشيس أي كمت هاي كجرتو إلهي الليسك الشاكرين الصابرين تأيو كدرا من نظر إلى دينه من هو فوقه فاقتدى به ومن نظر إلى دنياه إلى من هو أدنى منه نيكا مركي الدين نقطة ككسر يا إيغا إيكو ضيدا الدنيا مركي نقطنا إيغا ككهوسيا النعمة إلهي إساقوسي هوسو إيغا كو شكريا لابد خصلوا نيكا لبا اللي إلهي جل وعلا وحو كدرا شاكرين تي صابرين بركا إن الدوية اللي اسكاقا دايدو وولالك الدوية لغو لا ترتمو والدوية لغو حسدو لما أقولو وحا اللي أقولي هاي إن قفك دين تلغو لا ترتمو كاد دين في عمبا اللي إيقا دينا واللغو دايدا يالي واللغو دايدا صلاة شد وقت وادو كنيسة واتبعيسا لكنك سنة كدر يا إيجو بشر رمضان ما أدوك صوم إيسا سنة كلام سنتي نك شوالك كدر يا إيجو كديو أعمال بالله بعين لقو ترتمه أشياء لقو ترتمه ما مدول بأرزاق ده إلهين تو قريب وهلا إن كلو زيادة مهلا كسب أرزاق ده اسكو ما حدنو ضد باكاش شقة بدن هذيك لكن كان دخل ير نبى هذيك كاش غير لكن كان دخل بدن كوليغا الصباح ذا اللحظة الصباح نما شقادو بلابو أيو لحظة مغرب كسور دعاء سوى نفتي سؤال نفبكو جريمبا وحو قادنا يا وحيرو ليرا شان $8 أما $8 لكن إنجنير ذو كورما محي شقيان إنجنير كيف مسوي شقين ساعة لبا ساعة ولي بحفيظ قبو بكو شقين حبيس قبو وبيه ويالين وهالكن شاهي ويالو وكل شيء كاين ايو لبا صدح ساعه وشقين waxa laga yaabaa $100,000 inuu qaato maaha qalinka wuxuu ku helay arsaaqada may waa u qornayd imsa ka aqoon badan oo xaafadaha fadhido walwalan dadka inta shaqeynaysa kala haysa iyo inta qalada fadhida cunaysa ma badan ya bal dumarku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin ubadku may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo inaga qurux badan yihiin waayeeladu may shaqeeyaan may hadana way cunaan oo way cabaan dadka walwalan may shaqeeyaan may hadana way cunaan way cabaan
dadka jeelasha ku xidhan may shaqeeyaan may haddana way cunaan way cabbaan u fiirso dadka inta shaqaynaysa boqolkii 10 maaha 9 kalena way cuntaa marka walaalkaaga muslimka haddii ilaahay uu ka dhigay mid adiga kaaga horeeya xagga adduunyada war adduunyada qofka lagulama tartamo waxa lagula tartamo qofka aakhirada lagula tartama في أحد الغزوات كنبيين وبحجر صلى الله عليه وسلم غزوة كمدة أي نبي الصحابة كل رجال يجري سفرك ونقول دريا هاي سهيدنا ويكوبنت هاي نين ولو بالمانت وحد لبح كرت لبح بس عمر بن الخطاب مالين تامركم مغلي وحي كسر دعدي بودي مالين أنا نقول عن أبو بكر كجبرونه markaasaan is iri wallahi in badan baad Abu Bakar isku dayday inaad khayrka uga badiside ka badi kari weyde maanta aad fursad heshay waad ka badinaysaa maanta oo fursadda Umar uu haysto waa maxay Abu Bakarna waa faqiir waa markii Madiina loo soo hijroodo dhaqaalaba ma haysto Abu Bakar Umarna waa nin maal qabeen oo ganacsi buu leeyahay markaasa nabigu sallallahu alayhi wasallam saxaabadiisa nin walba wuxuu bixiyana weydiinaya walibana maanta aad maxaad bixisay ya rasuulallah inta soo neef baan keenay anigu ma sha Allah ka qaada waradna maxaad keentay ana inta soo ariyaan keenay ka qaada waradigu maxaad keentay inta soo nin baan aniguna saydooda keenaya ka qaada Umar oo socda markaa yimid ragii ka horeeyay Umar wuxuu nabigu weydiinayay waxay la baxeen buu weydiiyay لكن عمر بن الخطاب نبي سؤال عجيب ويدي وحو كيري يا عمر ريركاغا maxaad uga timid bali sheeg buu yiri ماذا ابقيت لاهلك صحابه intii kala dhan waxa la weydiiyay waxay keeneen la baxayaan laakiin Umar wuxuu nabigu weydiiyay xaad maanta Umar oo adiguna sid maxaad reerkaaga uga timid bali sheeg markaasuu yiri intan aan wado in la eego baan uga imiday buu yiri misaal ahaan ka soo qaadin 100 kun haysta oo 50 kun keenay 50 kun reerkii buu uga yimiday zamankoodaas masaariifta reeraha waxay ku bixiyaan baa la yiri way isma sheegi jirin laana Umar hadduu sheegi lahaa 50 kun reeraha uga yimiday نقصان با عمر هلكا كغا موقن لهي نولشيسا وايو waxa la ogaan lahaa ma maasha asxaabu rasuulillaahina ay dhagax caloosha ugu xidhanayaan ee ahlu sufiina xabad timir ay ku cuntaynayaan ayuu Umar xoolo inta la reerkiisa ku dhaxaystaa halka nuqsaan ba ka soo gaar lahaa Umar diintiisa lidaalika Umar ma sheegin wuxuu yiri intanaan wado in lamida baan uga imiday buu reerkaygi misaal ahaan 100 kun bay ahayd كنت كنا أو كأنه كنت أنا أقول هذي أبو بكرنا وحى وكان يا ما بجرت بقى وفقير عمر يسقو وحى فيلا يا إلا إذا هذا محاد كنتي ولا هذا كنت كن بكاني أبو بكر وهذا كنا محاد كنتي وحما هيست النبي الله وما أنت ده عمر إذا هذا أبو بكر هذا كبدية ما أنت وهذا فهمت ما نملين لكن سؤال النبي هو حيود على السدن ماذا أبقيت لأهلك يا عمر رأها محاد وقتي مدي انت انا وضع ان لا اقبان وغيم دبيولي انت marka lama weydiin sheeg lama oran inta mana sheegi karo inta reerka la weydiin intiina ma sheegin oo xishoodo ya rasuul inta aan keenay in la eegban uga yimidade Abu Bakar oo socdaa yimid oo yiri ya rasuul Abu Bakar ana reerkaaga maxaad uga timid sheeg wuxuu ilaahay rasuulka san uga yimid dibiyuli bila masaariif bila waxba marka uu nabigu eega Umar oo qoslo wuxuu ku yiri Umar labadiina sadaqa inta labadiina hadal inta u dhaxaysa ayaa darajadiina jannada u dhaxaysa rasuulku ku yiri waa maalinku Umar yiri hadde toole maanta intii ka dambaysa Abu Bakar dambo la tartamaya way hadhay yiri waadi fahamtay maanu malay tanafus wasari'u wasabiqu فليتنافس المتنافسون بإلهي صارعوا
adduunyada marka la nagala hadlaya ilaahay wuxuu yiri famshu fi manaakibiha u socda adduunyada u socda socodku waa sadan socod waa taqaanaan dhikriga ilaahayna fas'au ila dhikrillah sa'igu baa la yiri waa socodku ka sareeyay oo u degdega وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تنافسكنا waa maxay waa tartan laba qof oo sharad halka loo dhigay oo tartamaysa say u kala badiyaan jannada marka laga hadlayo laba nin oo sharad loo dhigay siday u baratamaan baa ilaahay yiri u soo baratamaan baa ilaahay yiri laakiin ilaahay xaqiisa marka la yirina waxa la yiri fafirru ila allah firarku waa maxay nin liba xiriinay ka warama laba nin oo sharatamaysa oo sharad halka loo dhigo baratamaysa iyo nin liba xiriinay maska orad ba orkay orad badan inaku dadkeena zamankan baa la yiri fafirru ila dunya adduunyadii baa loo ordaya maanta diin markay noqotona famshu waa u soconaa waa tukaday maxaa laga rabaa buu kooran wax salaada ka badan baa jira adduunyada u socaa laga yiri ilaahay xaqiisana waxa laga yiri fafirru firar ka firarika min al-asad sida libaax naftaada aad uga badbaadin lahayd naarta jahannama uga badbaadi baa lagu leeyahay adduunyada uga badbaadi fa adduunyada u kala badin mayno aakhiradan u kala badinayna amalka wanaagsan baan u kala badinayna ilaahay u dhawaashiisaan u kala badinayna jannadaan u kala badinayna fastabiqul khayraat khayrka u soo kala badiya baa ilaahay leeyahay khayrka u soo kala badiya marka adduunyada waa inaad tiraahdaa war inta ilaahay qadaray baan anigu aan haystaa ma dhaafin karo walaalkayna intan uu haysto ilaahay baa u qadaray waan u haneeyay la hasada illa fi ithnatayn baa nabigu yiri hasadka diinteenu ogoshahay waa laba shay kaliya laba shay baa qofku oran karaa Allah ma anigana ilaahay sida iga dhigo laba baa la kantaabu nabigu yiri waa labadee kamashadu laba bay u banaan tahay qof ilaahay dhaqaale uu siiyay oo dhaqaalihiisi meel fiican ku bixinay markaad aragto iyo qof ilaahay quraan uu baray oo saacadaha habeenka kamida quraanka isla taagay oo akhrinaya hadaad aragto labada baa la oran karaa Allah ilaahow maad anigana sida iga dhigtid sidoo soo kala anigu aan khayrka ugu badin lahaay labada qofku walaali ku kama kara maal qabeen meel fiican ku bixinay xoolihiisi masjid buu ku dhisaya madaaristu ku dhisaya makaatib buu ku furaya aytaamtu wax siinaya masaakiintu ku nafaqeynaya culimadu ku ikraamaya khalqiga ilaahay buu ugu adeegaya ka wala tamanni kara tamanni baa la oranayaaye ilaahu nicmada maxaad u siisay ka soo qaad maaha ma sidiisa ilaahu iga dhigtid weeyaan hadaad anigana xoolo isiin lahayd sidiisoo kala noqon laha oo khayrka ku bixin laha weeyaan iyo nin qaariyo quraan ilaahay oo baray oo saacadaha habeenkii kamida intuu ka ilaahay baryaya marka khayrkeena nu tartana diyaar ma unahay insha Allah dhahad وفي ذلك فليتنافس عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه ayaa sankaraadkii markuu qabtay ay ardaydiisii iyo culimadii ay dushiisa ku soo urureen ayuu dhaha kala qaado sida uu eegay limithli hada falyamal al'amilun buu yiri limithli hada maanta oo kale xaaladda anigu aan ku jiro oo kale nin walba way mari doontaaye warninkii u soo amal falayow halka ha u soo shaqaystay buu yiri halka marxaladda maanta anigu aan marayo maalin baad adiguna mari doontaaye arintaad noo shahay khayrka u kala badiya khayrka u kala badiya khayrka u bartama khayrka amira khayrka beera khayrka ka shaqee khayrka ilaahay nasiyana waa diinta islaamka diin qiimo ku yeelaysa adiga jibriil alayhi salaam quraanka loo soo dhiibay sayyidul malaa'ika ilaahay ka dhigay nabi maxamed quraanka lagu dajiyay sayyidul awwalin wal aakhirin baa ilaahay ka dhigay ummadda nabi maxamed baa quraanka lagu soo dajiyay dusheeda ummadaha khayr badan baa laga dhigay makka quraanka lagu soo dajiyay buqcadaha adduunyada ugu khayr badan baa laga dhigay
bil ramadaan buu quraanku soo degay bisha bilaha ugu khayr badan baa laga dhigay habeen leelatul qadr quraanka la soo naqliyay habeenkaasi wuxuu noqday kun habeen kun bilood habeenka khayr badan buu noqday habeenkaasi diintaas ilaahayna siiyay sharafta ku yeelaysa ee khalqigii sharafta u wada yeeshay jibriil bay diintu sharaf u yeeshay oo lagu ammaano la yiri nazala bihi ar-ruuh wa innahu la tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruuh al-amin jibriil alayhi salam buu quraanku amiin ku sheegay amiin ruuh al-amin wa jibriil muxuu amiin ku noqday waa waxiga uu ka soo qaadayay baytul izz ee nabigeena muhammad oo arlada ugu keenayay sayyidul malaa'ika ku noqday nabigeena quraanka lagu soo dajiyay isaga sayyidul awwalina wal aakhirin buu noqday makka quraanku ku soo degay buqcadaha dunyada ugu khayr badan bay noqotay makka salaada makka lagu tukado waa 100,000 oo salaadood 100,000 oo salaadood waa meeqa sano ma taqaana waa 55 sanadood iyo 6 bilood iyo 22 habeen hal salaado makka lagu tukado yaa u dhiganta 55 sanadood iyo 6 bilood iyo 22 habeen 5 salaadood ninka ku tukada ka warrama waa 500 sanadood iyo ziyaado 10 salaadood ninka ku tukada ka warrama 10 salaadood 20 salaadood 5 salaadood waa 250 10kii waa 500 20kii waa 1000 sano iyo dheeraad qof jiray weeyaan makka waxay qadarka iyo qiimaha ku yeelatay waa buqcadii nabi maxamed ku dhashay alayhi salatu wasalaam waa buqcadii kacbadu ku taalay waa buqcadii quraanka kariimkeenu ku soo degay ummadana ilaahay quraan buu siiyay waxay noqotay ummadaha ugu khayr badan bay noqotay habeenkii quraanku soo degayna waxa la yiri inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna anzalnahu fi laylatil qadr laylatul qadr khayrun min alf shahr diintaas dhulkii qiimo u yeeshay maalmihii qiimo u yeeshay bishii qiimaha u yeeshay nabigeena muhammad qadarka u yeeshay jibriil makaanadiisa kor u qaaday haddaan diinta inaguna kor u qaadno dhaqaalaheena aqligeena cimrigeena aan ku bixino inteen leeg diintaas kor inoo qaadayna kan walaalayaal yaanan cimrigeena adduunyo ku wada bixin adduunyadu ali baa lagu yiri siflana ad-dunya ya amir al-mu'minin adduunyada bal noo sifee markaa buu noo tusaale ma asifuha maxana adduunyada inigu sheegaa buu yiri oo fikiray awwaluha ana awwalkeeguna waa tacab waa daal wa aakhiruha fana aakhirkeeguna waa dhamaad halaaluha xisaab halaalta kugu soo gashana waa laga xisaabi wa haraamuha iqaab teeda xaraan kugu soo gashana waa iqaaba ku sugaysa ninka adduunyada hantiila ku noqdana oo fidnoobay buu yiri ninka ku dhax faqiiroobana oo murugooda buu yiri ninka hantiilaha mu raaxaysta waniga maalqabeenka ka warrama isaga ugu walwal badan oo ugu murug badan oo ugu hurdo yar oo ugu raaxo yar oo ugu naxdin badan dadka maalqabeennada intooda badan waxay ka cawdaan ma taqaanaa dhiikar iyo macaan maxaa keenaya ma taqaanaa waa qalbiga waa wadnaha temperature-ka qalbiga marna uu dhaadhaca marna uu kaca marka la yiraahdo waad macaashsana uu farxa marka la yiraahdo markabkaaga uu dagayna uu dhaadhaca dadna markaas dhiigiisu marna 50 buu gaadhayaa mar 100 ku gaadhayaa mar 200 gram buu macaankiisu gaadhayaa waa ka cafariis dadka ugu caafimaad badan adduunka waa dadka fuqarada dadka ugu caafimaad badan corona waagii dhawata dadka ugu cabsi badnaayay hayeen labada qole hayeen laba qolada lacaglayda ee shawladooda gaaska ku jira gaas bay leeyihiin mogda iyo qolada madaxda kuraasada ku fadhida inay dhimaneen isku haysata labada qolo ugu cabsi badnayd maskiinka faqiirka qadadii doondoonaya ma corona ka baqi warbu ka baqi ciyaar buu arkay riwaayad la sameeyo إما كانوا في رصد جيبوتي واحد أفكار حدنا ودواتك العقد لها العقل يدي مدحدي والله ما قالوا اسكوها يستبين الدمانين بقى فقير كمية وحدتك مع القبينة ده مدحد إلهي كوصل لدي عبصية فقير كإلهي وكقال وحص لكن إذا كانوا حكوا له كمرجونه
shoomeernimada maxaa tirahdaan bisaarad baa madaxa wareerisay isagana taasuu madaxa la xoqanaya xageed tagtaa ciyaalka halkeed geysaa فإن شاء الله هذا إن دينتنا معا كشغينا ديار منها إن شاء الله